dawada kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada markii barnaamijka arrimaha siyaasadda garqaad media qodobada wararkan ku soo qaadan doona waxa ka mid noqon doona booliska Kenya oo qabtay rag looga shakisan yahay inay weerar rabeen xero military leeyihiin ciidamada dalka Britain. dhanka kalena dawladda Iran ayaa waxa ay jabsatay barta internetka ee dawladda Mareykanka iyadoo ay cirkeed ku sii shirartay xiisadda ka dhaxaysa labada dawladood. UK waxay ku dhawaaqday in ciidamadeeda ay sii joogi doonaan gudaha dalkaas Ciraaq xilli xiisadda bariga dhexe aysan weli fadhinin. dhanka kalena Sheikh Mukhtar Robow oo la sheegayo inuu weli ku jiro xabsi ayaa waxaa laga deerinayaa xaaladiisa caafimaad isagoo la sheegin hadda uu diiday gabi ahaanba cuntada. qodobadaas weliba qodobo kale ka mid ah oo ugu dambeeyay doorashada deegaanada Galmudug ayaanu barnaamijkeena qaybaha dambe wadaaqooda ku soo qaadan doonaa kuna falanqeyn doonaa intaanu hawada ku jirno. waa 7 bisha January 2020 daawadayaal. haddii aanu ku bilowno faahfaahinta wararka daawadayaal, booliiska magaalada Nakuru gobolka Limini ee bartamaha dalka Kenya ayaa fiidnimadii Axaddeed qabtay 3 nin oo looga shakisan yahay argagixisnimo xilli ay isku dayeen inay xoog ku galaan xero military ciidamada Britain ay ku sugan yihiin, taasi oo aad loo ilaaliyo. 3 nin ayaa waxa su'aalo weydiinaya baarayaashii waliba ciidamada booliiska ee ka qaybta la dagaalanka argagixisada loo yaqaano Atbu, sida uu sheegay taliyaha booliiska Rift Valley Marcus Osholo. raggan looga shakisan yahay ma hubaysneen balse waxay lahaayeen ujeedooyin qarsoon ayuu yiri. faahfaahin kama bixin karo hadda, laakiin arrinta waxaa gacanta ku haya waaxda la dagaalanka argagixisada ayuu yiri. sidoo kale waxa uu sheegay in raggan loo weydiinayo su'aalo adag si loo ogaado waxa uu qorshahoodu ahaa. waxa uu kaloo raggan looga shakisan yahay inay lahaayeen koox u basaasiisay oo kor kala socoto una fududeynayeen inay xerada galaan. booliiska ayaana hayo sawiro ay qabatay kaamirada qarsoon ee loo yaqaano CCTV-da waxaana lagu wareejinayaa mas-uuliyiinta baarista ku howlan. maalin ka hor ayay ahayd markii al-shabaab ay weerar xero militari ah ku taalo gobolka xeebta Lamu ee halkaas oo ay si wadajir ah ugu sugnaayeen ciidamo Mareykan iyo weliba kuwa Kenyan ah. weerarkaas ayaana waxaa lagu dilay askari Mareykan iyo weliba 2 qandaraasayaal oo u shaqeynayay wasaaradda gaashaaniga Mareykanka. weerarkan ayaa waxaa sheegtay ururka al-shabaab oo yiri waxaanu khasaare baan gaarsiinay buu yiri ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa xeradaasi. al-shabaab ayaana hadda waxay la soo baxeen awoodoodii ugu dambeeyay gudaha dalka Kenya iyagoona sameynaya weeraro argoosi ah iyo weliba kuwa kale ay la beegsanayaan meelaha ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka iyo weliba kuwa Kenyanka. waxaana sidoo kale lagu xasuustaa in gobolka bari ee dalkaasi Kenya ay ka geystaan weeraro kuwaas oo ay ku geysan karaan meesha ay rabaan iyo weliba xilliyada ay rabaan, taasi oo dhalisay in isu socodka deegaano ka mid ah dalkaasi Kenya uu noqdo mid cabsi dhaliya. waxaana sidoo kale aad looga cabsadaa marka ay timaado isu socodka deegaanada gobolka bari oo la sheegayo in ciidamada ka tirsan kuwa al-shabaab ay aad u buux dhaafiyeen deegaanadaasi. dhanka kalena dawladda Iran ayaa la sheegayaa inay gebi ahaanba jabsatay xog aad u muhiimeed oo ku jirta barta internetka ee dawladda Mareykanka. koox ka soo jeeda dalka Iran ayaana qiratay inay jabsadeen website-ka dawladda Mareykanka ayna ku baahiyeen fariin. muuqaalka madaxweyne Trump oo dhig ka muuqda ayay ku shaaciyeen barta internetka ee dawladda ee Mareykanka. fariin la socota ayaana lagu sheegay in kooxdan ay ka falcelinayeen dilkii loo geystay General Qasem Soleimani. weli lama shaacin cadeymo rasmi ah oo sheegaya in falkan ay Iran ka dambeysay. madaxweyne Trump ayaana bartiisa Twitterka ku qoray in haddii Iran ay weerarto saldhigyada Mareykanka ama muwaadiniin Mareykan ah uu dalkiisa uga jawaabi doono hubka casriga uu haysto. waxaa Iran kula talinayaa buu yiri inaysan ku ina weerarin, haddii ay ina weeraraan anakuna waan weeraraynaa ayuu Trump kusoo qoray bartiisa Twitterka. hase yeeshee arrintaasi waxaa ka jawaabay Denham oo sheegay in Mareykanku uu bilaabay dagaal dhamaystirkana ay leedahay Iran. Denham ayaana sidoo kale uu ka jawaabay hanjabaadii ka soo yeertay madaxweyne Trump oo ahayd in Mareykanku bartilmaameedsan doono 52 xarun dhaqameed haddii ay Iran talaabo qaado oo argoosi ku aadan. dilkii loo geystay General Qasem Soleimani ayaa dhalisay xiisad cusub oo ka dhex taagan labada dawlad, taasoo horeyba u ahayd mid cakiran kadib cunaqabateyntii madaxweyne Trump uu saaray dalkaasi Iran ee ku aadaneed ka dhawshada saliidda ee dawladda dalkaasi Iran. waxaana sidoo kale ilaa hadda cakiran xiisadda bariga dhexe iyo weliba gobolka dhan, iyadoona dawladda Ciraaq ay ku dhawaaqday in gabi ahaanba ciidamada shisheeye ay ka baxaan gudaha dalkaasi Ciraaq, taasoo sababaysa baa la yiri in madaxweyne Trump uu hanjabo sidoo kale dawladda dalka Ciraaq oo ka badan 5,000 oo askari oo Amerikaan ay ku sugan yihiin isla gudaha dalkaasi Ciraaq.
dhanka kalena dowladda ingiriiska ayaa codsatay in loo ogolaado in ciidamadooda ay sii joogaan ciraaq kadib dilkii loo geystay jenaraal qaasim suleymaani. UK ayaana sheegtay in howsha ay ka hayaan ciraaq ay tahay mid muhiima. suleymaani oo duqeyn dhanka cirka waxaa ku dilay dowladda dalka maraykanka xilli uu marayay meel aan sidaas uga fogeyn garoonka diyaaradaha caalamiga ee baqdaad. baarlamaanka dalka ciraaq ayaana ansixiyey qaraar ku baaqay in ciidamada shisheeye ay ka baxaan guud ahaanba dalkaasi. madaxda dalalka Yurub ayaa dhinacyo oo dhan ugu baaqay inay arrintani ay xakameeyaan. horaan ayuu wasaaraha dalka Britain wuxuu qadka telefoonka kula xiriiray dhigiisa ciraaq waxayna isku raaceen in si wadajir ah looga wada shaqeeyo arrimaha diblomaasiyadeed ee taagan. waxaana ay dhalisay in dilkii loo geystay jenaraal qaasim suleymaani ay soo baxaan su-aalo badan oo ku aadan arrinta guud ee dalkaasi ciraaq iyo weliba ciidamada ku sugan ee dalkaasi. waxaana arrintani dhalisay in ciraaq ay noqon karto goob dagaal ay ku hordamaan wadamada ugu awooda badan adduunka, taasoo ka dhigi karta in ciraaq ay mar kale ku noqoto dagaalkii ay hore uga soo kabsatay ee uu maraykanku ku qaaday. waxayna arrintani sababi kartaa baa layidhi in haddii aysan ciraaq ka gaarin go-aan deg deg ah ciidamada jooga gudaha dalkaas ciraaq ee ka yimid dalalka shisheeye inay noqon karto in mar kale gudaha dalkaas ciraaq lagu hardamo. iiraan oo laga dilay ninkeedii ugu awooda badan dhanka ciidamada lagu magacaabi jiray jenaraal qaasim suleymaani ayaa waxay keenaysaa in aada looga fajginaado weerar ka dhaca gudaha dalkaas ciraaq uu argoos u muuqdo, kuwaasoo laga yaabo inay geystaan ciidamo taabacsan iiraan iyo weliba kuwa kale ee daacad u ah dalkaasi iiraan. waxaana sidoo kale xiisada bariga dhexe ay ilaa hadda tahay mid aan xakamaysaneyn, iyadoona wadamada khaliijka oo ay ka mid yihiin sacuudi carabi, imaaraadka, qatar iyo weliba wadan kale ee turkiga ay iyagana sidoo kale ku hardamayaan gudaha dalkaasi libiya. waxaana madaxweynaha dalka turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo shalay ku dhawaaqay in ciidamadii ugu badnaa dalkaasi ay u socdaaleen dhankaasi libiya si ay u taageeraan dowladda awoodda taagta daran ee ka dhisan Tripoli ee caasimada dalkaasi libiya, iyadoona ilaa hadda jenaraal Hadlaf oo ah ninkay aad ku taageerayaan wadamada khaliijka ay ka mid tahay sacuudiga iyo weliba imaaraadka uu ilaa hadda isku dayiyo siduu u qabsan lahaa caasimada Tripoli, balse la sheegay in ciidamada taabacsan madaxweynaha dalkaasi libiya ee ciidamada aadka u taagta daran iyaga difaacii ugu dambeeyey ay sameynayaan, kaasoo u diray codsigiisii ugu dambeeyey Erdogan si uu u difaaco dowladdiisa. waxayna keentay in dowladda dalkaasi turkiga ay ku dhawaaqdo in ciidamadii ugu badnaa ay u socdaaleen dalkaasi libiya. dhanka kalena sida ay ogaatay garqaad media waxaa 4 maalmood kadib shalay cuntadii bilaabay sida la sheegay Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur oo muddo sanad ka badan u xiran dowladda federaalk ee Soomaaliya. Abu Mansuur ayaa 3 arrin u qaatay go'aan kara in cuntadu ka samo, waxaana wararka aan helnay ay xaqiijinayaan in 3 caqabad ka mid ah la xaliyay halka kuwa kalena aan wali wax laga qabanin. Abu Mansuur ayaana ka caawiyay arrimaha kale ah in la dejiyay guri jiingada oo ku yaala dhabarka dambe ee madaxtooyada kana tirsan degmada Wardhiga ee gobolka Banaadir, waana aag ay badanaa kusoo dhacaan madaafiicda loo wada villa Soomaaliya. waxaana mid kale labaad ay tahay inaysan mushaar qaadan ciidanka ilaaliya dhowrkii bil ee lasoo dhaafay, isla markaasna ay ka suurtoobi karaan xaalad kasta. waxa uu sidoo kale ah in uusan helin cadaalad muddo ka badan sanad oo u xiran yahay dowladda federaalk Soomaaliya. wasiirka hore ee gaashaaniga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo xalay la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in Mansuur uu soomay 3daas arrin, isla markaasna geligii dambe shalay laga raray halkii ugu deganaa, waxaana la dejiyay guri u dhow xarunta hay'adda NISA ee degmada Shibis. wasiirka ayaana sheegay in Sheekh Mukhtaar Robow uu markaasi kadib bilaabay cuntada, isla markaasna la geeyay meel ka roon halkii hore, balse ay weli jirto cabashooyin kale uu qabay, isagoona dowladdu ku dhaliilay inaysan ilaalin cadaaladda iyo weliba shuruucda kale ee muwaadinka. dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa aada looga hadlayay xaaladda caafimaad ee Mansuur, iyadoo ay dadka walaac ka qabeen noloshiisa maadaama uu ka soomay cuntada. waxayna taasi sababtay in Mansuur isla markiiba laga bedelo waxyaabihii uu ka cabanayay, ilaa hadda wax maxkamada lasoo taagan una xiran dowladda muddo ka badan 1 sano. ugu dambeyntiina deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb waxaa laga dareemayaa ololihii doorashadii ugu dambeysay deegaanada galmudug, iyadoona musharaxiinta u kala tartamaya xilka madaxweynaha ee galmudug ay kusii qulqulayaan magaaladaasi iyo weliba magaalooyin kale u dhow Dhuusamareeb. waxayna sameynayaan dadaaladoodii ugu dambeeyey weliba ololahoodii ugu dambeeyey ay kusoo jiidanayaan codadbixiyaasha baarlamaanka galmudug si ay ugu helaan
ama u noqdaan madaxweynaha cusub ee maamulkaasi galmudug. waxaana ilaa yaa hadda aan la saadaalin karin madaxweynaha kusoo bixi karo deegaanadaasi galmudug inuu ka noqdo madaxweynaha maamulka galmudug, walow ilaa yaa hadda ay ugu cadcad yihiin sida la sheegayo Gamaal Guutaale oo ay wadato xisbiga Wadajir, iyo sidoo kale sida Cabdiraxmaan Odowa oo isagii hore uga mid ahaa xisbigii uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud, sidoo kalena soo noqday wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. waxaana aad ilaa ya hadda loo sheegayaa in codad bixiyaasha ama sidoo kale loo doorashada ee aad ugu dheereynayaan labadaas mas'uul, walow ilaa ya hadda aan la sheegi karin cidda kusoo bixi karto doorashada kama dambeysta ah ee ka dhaceyso magaalada Dhuusamareeb. intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal, tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.